Somali Youth Advocacy Organization SYAO hay-adda u dooda xuquuqda dhalinyarada Soomaaliyeed ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano SYAO waxay idin soo bandhigaysaa filim documentary ah oo ka hadlaya waxqabadkii labadii sano ee la soo dhaafay المريديان مقالة نيروبي دالك كينيا iyadoo bisha ku beegan 20 bisha October sanadka 2017 ururka dhalinyarada SYAO ee saldhigga ku leh magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxa farxad u ah in madax ka tirsan dawladda Soomaaliya dhalinyaro gaaraysa ku dhawaad 200 haween iyo ururada bulshada rayidka xubno ka socda inay halkan maanta kaga dhageysato aragtida ay ka qabaan موضوع aan soo xulnay oo runtii xasaasi ah marka loo fiiriyo xaaladda uu hadda dalka marayo waa doorka waalidiinta Soomaaliyeed kaga aadan in aan caruurtooda loo isticmaalin dana siyaasadeed iyo mid المرسلين صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد dhalinyarada kamid ah ururkan SYAO ee Soomaaliyeed maanta xafladan abaabushay ka soo qalab galayaasha marti sharafka madaxda safaaradda ka socota madaxda kale ee Soomaalida ah meel kasta ka socdeen marka hore waan salaamaya marka labaad waxaan rabaa inaan u guuriyeeyo yani aan u hambaliyeeyo nimanka dhalinyarada ee shaqadan qabtay oo abaabulay guud ahaan iyada oo duruufta maanta xaaladda Soomaaliya la og yahay gaar ahaan Kenya ay xagga mujtamacahan iyo nolol ahaan ay ka sii liidato inkastoo dagaal ahaan aanay sida Soomaaliya ahayn misana waxaan ognahay dhibaato badan inay haysato ummadda Soomaaliyeed ee qaxootiga ah ee joogta daafaha East Africa waxaan ugu guuriyeenahay ugu hambaliyeenahay horta abaabulkan iyo guushan ay gaareen guud ahaan waxaan ognahay Soomaaliya xaaladeeda maanta shacbiga Soomaaliyeed meel kasta uu joogo waa ka damqaday waxaan ogahay Soomaaliya xaaladda maanta ay marayso waxa la yiraahdaa waa unique waxa la yiraahdaa waa wax oo aan la soo arag adduunyada maarta casriga iyo casriga cusub lama soo arag dawlad saas oo kale oo burburta misana kaban weysa misana iyadoo adduunyada kale shaqo ku leh lakini sitaongea Najib ambaye ndiye organizer anatuambia why we are doing this and also the most important thing we expected. So beginning with Najib, good. Amefanya job poa. So far you can see well organized. muuqaalkan aad daawanaysaan waa ciyaar basketball ah oo ay wada ciyaarayeen gabdhaha iyo wiilasha tiimam gabdhaha ka socday iyo tiimam wiilasha yaryarka iyo haweenka ka socday ciyaartaasi SYAO ayaa soo qaban qaabisay waxaana lagu weyneynayay 8 Maarso maalinta haweenka adduunka ciyaarta oo ahayd mid aad u xiiso badneyd ayaa waxa ka qayb galay kooxo badan iyadoo dhamaan kooxihii ka qayb galay kuwii guuleystay iyo kuwii kaalmaha galay intaba
iyo gabi ahaanba kuwii kasoo qayb galay la guddoonsiiyey hadiyado qaali ahaa oo ay qalab isboorti lacag iyo weliba koobab ay ku jireen. sidoo kale kooxaha intay ciyaarayeen waxaa madadaalada qayb ka ahaa oo heese iyo halkaasi ka qaaday kooxaha fanaaniin ah kuwaasi oo iyaguna qayb ka qaadanayay barnaamijka lagu weyneynayo. ay dhigaysay hay-adda SYO oo ah hay-ad ka shaqeysa arrimaha nabadda iyo dhalinyarada una ololeysa sidoo kale dhalinta Soomaaliyeed meel walba ay dunida ka joogaan. maantana waxay u taagan tahay inay xusto maalinta haweenka dunida ama adduunka. xafladda waxaa nagala soo qayb galay mas'uuliyiin fara badan sidaad arkaysaan baa ugu horeeyo safiirka Soomaaliya ee Kenya Ambassador Maxamed Cali Nuur Americo, gudoomiyaha SYO Maxamed Ibrahim Ali, xidigii Jenyo ee kubadda koleyga Saciid Qorsheel National Team Soomaaliya, Ali Xaashi, Ahmed Shuqul iyo mas'uuliyiin kale fara badan. waxaan ku soo dhaweynaa Ambassadorka Soomaaliya balsi isna kelmadiisu yiraahdo. waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa marka hore Maxamed Cali iyo SYO oo soo qabanqaabiyey xafladan maanta aadka u qurux badan leh. waxaan kaloo u mahadcelinayaa Shamso iyo kooxdeeda markasta u taagan inay naxasuusiyaan hidaha dhaqankeena. waxaan kaloo u mahadcelinayaa dhalinyaradii ka qayb gashay ciyaartii maanta la ciyaaray kubadda koleyga ahayd. Wallaahi wa barakaatu. sida aan maanta u waraweynayna munaasabada weyn ee maalinta haweenka adduunka. haweenka waa laf dhabarka bulshada. marka waxaan sidoo kale meesha ka salaaminaa Ambassadorka Maxamed Cali Americo oo safiirkeena ah, Saciid Qorsheel oo ah ciyaaryahan caan ahay marna soo noqday wasiirka isboortiga, asigana waa u mahadcelinaynaa. sidoo kale waxaa mahadkaar u jeedinaa dhalinyarada oo isxilqaamay maanta sida wanaagsan ee u soo camireen maalinta haweenka adduunka ee munaasabadooda ee u sharaxeen, iyagana waa u mahadcelinaynaa. sidoo kale gabdhaha oo af dhabarka bulshada waxa waaye hooyoy la'aanta hore loo dhaho hooyo la'aanteed lama noolaa karo, gabdhaha la'aantoodna lama noolaa karo. marka waxaa leenahay gabdhaha wanaagga iyo sharafka iyo quruxda aad maanta aad soo jeediseen idinkoo kuwa yar iyo kuwa waaweynba waa u mahadcelinaynaa. Okay, under 18 captain, under 18 captain. Makofi jamaa. Now winning team ladies. 8 Maarso oo SYO ku qabatay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Okay. Ready. MashaAllah. SYO waxay sanadkii tagay ku qabatay magaalada Nairobi ee dalka Kenya barnaamij xaflad aad u heesareysay oo lagu weyneynayo 1 Luulyo oo markii xornimada qaatay dalka Soomaaliya. aynu ogsoonahay maanta sida wax inoogu dhammaan karaan oo ku soo celin karaa karaamadeenii, dowladnimadeennii iyo midnimadeennii. waxa weeyaan inaynu soo celinno wadaniyadeennii. runtii arintaas maanta waaya cusub waxa garab ku siiyay ururka dhalinyarada SYO oo maanta qarashaadka iyo everything meeshan galay idinka bixiyay Soomaaliya SYO runtii waxa weeye waxaan rabaa hadal badan ma rabo munaasabada waa munaasabad Soomaaliyeed Soomaali baan nahay
dad adinkeena ka qiimo badan ma helayno dad adinkeena ka qiimo badan noo imaan maayaan dad adinkeena ka qiimo badan qof kale naga doorsan maayo adinkaa dadkanaga ah adinkaa idiin shaqaynaynaa adinkaa isa kaayale soomaaliya haddana waxaa ku soo dhowaynayaa guddoomiyaha ururka dhallinyarada SYL maxamed cajiib ku soo dhowow بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان وسلامتين مدحنا جلسوا قبل كشح اللي معنا وزيردي هو كسر دولة TFG دليرة الصوماليات يحبنا كسر سيفل سوسايتي يا سيدو كلاتا فنانين تا أنا نحن حكرنا عاو برامج كان يبقى لإنوسو بندقة عتي أو حكوا عصف فنانينتي وعبري هو الذي وعبري سلو كله توايا عصب وأوهم بليننا محايلة ما أنت أورور كنا SYL ومعنيس وعوي وأورور كأنتوا حقوق دليرة الصوماليات وعوا دليرة الصوماليات وأيه وتنبه وحلقة إنك تحاول تبقى لقوشته ما نطول قادن تونا إن دليرة إن حاول تبقى لقوشته xafladaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay dad aad u tiro badan oo mas'uuliyiin fanaaniin iyo dadka ku dhaqan magaalada Nairobi ee Soomaalida ah waxaana iskugu yimid kumanaan dad ah kuwaasi oo aad ugu faraxsanaa weynaynta kooda Luulyo SYL-na waxay u fududeysay dhammaan ka soo qayb galayaasha goobihii iyo waliba barnaamijyadii loogu talagalay واسيدي هوري هذا الذي يقول لي أنا ما كي أروح عن اللوبي إلى الشيء مثلا SYL أو شيء أي في اللي ينقضوا أيوة هذا أيوة كذا كذا سمي وماتي هذا العيال فري xafladaasi kadib isla maalmihii xuriyada SYL waxay qabatay sports lagu weyneynayay kooda Luulyo sportigaasi oo ay kooxo badan ka qayb galeen waxayna ku qabatay isla magaalada Nairobi ee dalka Kenya kooxii guuleystay iyo kuwii aan guuleysanba goobtu waxay kala laabteen hadiyado qaali ah rag magac ku leh sportiga iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ayaana sportigaasi ka soo qayb galay ciyaartu aad u xiiso badnayd ayaa markii ay soo ilaatay dhammaan la guddoonsiiyay ka soo qaybgalayaasha iyo kooxihii hadiyada ay ku farxeen iyagoo waliba aad isku jeclaan dhalinyaradii ciyaarta ciyaarayay البرايا ولكل محجة بيضاء رب صل على الحبيب محمد وعلى آل من هم الكرماء فدعاه النبي حين على سدرة نور منه عليها غشاء رب صل على الحبيب محمد وعلى آل من هم الكرماء فعل عظيم
لم تشابه صفاته صل على حبيب محمد وعلى آل محمد. hay-adda SYAO sidoo kale waxa ay qabatay banaanbax iyo waliba xaflad weyn oo lagu weyneynay dhalashadii nabigeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa aatee kaasoo ka dhacday magaalada Nairobi ee dalka Kenya. waxaana qayb ka ahaa culamaa u diinka ahlus sunna wal jamaa kuwaasi oo iyaguna si heer sare uga qayb galay xafladaasi lagu weyneynay dhalashada nabigeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa aatee kaasi oo ay ka soo qayb galeen culamaa u diin magac ku leh bulshada Soomaaliyeed iyo waliba bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan magaalada Nairobi. banaanbax iyo waliba xaflad oo ahaa mid aad u balaaran ayaa waxaynu ka soo qaadanaynaa qaybahan. خص منه محمدا بالمزايا الغر من المعراج والإسراء. ربي صل على الحبيب محمد وعلى آل محمد. أرسل الروح بالبراق كما تفعله للكرامة الكرماء. ربي صل على الحبيب محمد وعلى آل لكن مع ما حوته قد تباهت وزاد فيها البهاء. ربي صل على الحبيب محمد وعلى آل محمد. صل على الحبيب محمد وعلى الحبيب محمد وعلى آل محمد. ay uga dayanayaan bay isugu soo dhaxeen arrintan nicmo weyn weeye waxaan u arkaynaa inay tahay wax weyn oo islaamka shacayrtiisa qaybaha ugu waaweyna mudanna mar walba sidaa iyo si kasii wanaagsan islaamku inay isugu soo baxaan حبيبه عليه عليه الصلاة والسلام رسول الله وأكبر كل هذا. كلمة الله على دينكم الله. باقي الأحياء تسمع شيء مناسبتها. ولما كملتها ذكر معها يقرأها إن المناسبتها هي تعظيم كريم وإن كريم شعبون سيدنا صوت رفتان لن يرى قلقا كاية ترى وأخرها لن يرى مغرب وحال إرادة Somali Youth Advocacy Organization. Somali Youth Advocacy Organization. وعضو الرياضة الصومالية وعضو الرياضة الصومالية. لكن أنا أسمع الله سيدنا الله سبحانه وتعالى وأنا جعلنا لك كما وصايا مسجد الله يذكر لنا الإسلام في وقت الإسلام في وقت الصومالية كلها إن هذه سيدنا لك الله وتبارك الإسلام ويوم القيامة gaar dhalinyarada balqaadisay isbitaalka ka soo shaqaysay aad iyo aad u wanaagsan yihiin waxaan u walahay sidaas u raaxaysaa iyo
Somali Youth Advocacy Organization SYAO waxay sanadkii tagay magaalada Muqdisho ku qabatay ciyaar basketball ahayd oo ciyaarayeen gabdhaha Soomaaliyeed kaasi oo lagu soo dhaweynayay hay'adda SYAO oo iyadu Muqdisho ka qabato howlo aad u tiro badan. ciyaarta oo ay aad u xiiso badan oo ay ku ciyaarayeen gabdhaha kubadda kolayga oo koox badan ahaa ayaa waxa sidoo kale ay ciyaartu mid aad u xiiso badan. ciyaartu markay dhamaatay ayaa hay'adda SYAO waxay guddoonsiisay ka qaybgalayaashii ciyaarta koob iyo waliba bilado aad u qaali ah kuwaasi oo lagu dhiirigelinayay gabdhaha kubadda kolayga. kooxaha Hagan iyo Nation maanta runtii naga soo qayb galay koobkan lagu soo dhaweynayay madaxda hay'adda SYAO oo ah hay'ad ka shaqeysa arrimaha dhalinyarada iyo isboortiga horumarintiisa nagana soo gaaray dalka Kenya magaalada madaxdeeda Nairobi. ciyaarta xiisaha lahayd iyo dadkii ka soo qayb galay dadkii soo aabulay madaxda garoonka iyo waliba tababarayaasha kooxda inta la sidoo kale waxaan celinayna guddoonka sare ee haweenka qaranka Soomaaliyeed oo iyana waqti badan soo hurtay استعنب ومانتا نلا دعوتي سو dhiirigeliso iyana gabdhaha Soomaaliyeed sidoo kale ciidanka garoonka Hagan sidoo kale maad celinaa dhammaan inta ka soo qayb gashay koobkan waana ku maasantiin kala ftiino maadaama ay horumarinta ee gabdhaha ay yani ay diyaarinayaan aad iyo aad aan ugu faraxsanahay. gadcadaga odaygiyo Somalay u gurmada gambolayda dumarkii Somalay u gurmada gadigood caruurtii gaajay laliita waxna geeriyoodeen gadcadaga odaygiyo Somalay u gurmada gambolayda dumarkii Somalay u gurmada. sida aan la socono dalkeena abaara ayaa ku dhuftay iyadoo dad badan ay u dhinteen qaar badan ay macluul la liiteen. SYAO oo ah dhalinyaro isku tagtay waxay isku hooleen sidii ay gargaar u gaarsiin lahaayeen bulshada dhibaataysan ee Soomaaliyeed waxayna damiirkoodu siiyay in ay wax ay haystaan ugu deeqaan shacabka Soomaaliyeed iyagoo Muqdisho xirooyin ku yaalana ka qaybiyay lacagaha sida muuqaalkan aad ka arkaysaan. waxayna SYAO kaalinta koowaad ka gashay gargaarka loo fidinaya bulshada Soomaaliyeed ee dhibaataysan. galowgiyo ugaadhi geeliyo fardaa iyo geeslayda oo idil abarba gilaysi Somalay u gurmada wabigi gananiyo gudece lashiyo
dhulka geed ma soo buuxo lama goosto beeraha gasiinkii la cuni jiray galan lagama soo heloye galan lagama soo heloye gasiinkii la cuni jiray galan lagama soo heloye galan lagama soo heloye wabigii ganaaniyo gudhece lashiyo dhulka geed ma soo buuxo lama goosto beeraha gasiinkii la cuni jiray galan lagama soo heloye galan lagama soo heloye gasiinkii la cuni jiray galan lagama soo heloye galan lagama soo heloye gacantii waxaysiin ganacsadiyo maalqaabe giddigiin istaago u gurmada dadkiinu Somalay gurmada gacantii waxaysiin ganacsadiyo maalqaabe giddigiin istaago u gurmada dadkiinu Somalay gurmada gacalkayo idinkuna gacmihiin u hoorsada gula weyn ilaahay asaga gargaadhe gula weyn ilaahay gacalkayo بسم الله الرحمن الرحيم waxaan farxad gaaraya maanta in aan joogno kaamka Cariifwan ee ku noolyihiin 318 qoys waana ka urur dhalinyaro aan soo gaarnay markii aan ogaanay dhibaatada haysata dadkeena dalkeena Soomaaliya ugu soo kurmanay dalka banaankiisa farxad gaaraya inoo tahay waxaa sidoo kale u mahad celinaynaa mas'uuliyiintii oo maamulka wadaad gudoomiyaha iyo gudoomiyaha kaamka oo mahad celinaa sida sharafta leh oo wanaag dood cilmiyeedkan ay soo qaban qaabisay hay'adda ka shaqeysa arrimaha dhalinyarada ee Somali Youth Advocacy Organization SYO loo soo gaabiyo dood cilmiyeedkan waa wajigii saddexaad ee ciwaankiisa lagu qabto magaalada Nairobi isla hoolkan aan fadhino ee hotelka Meridian waxaan u mahad celinaynaa ka soo qaybgalayaasha naga aqbalay casuumaadii aan u fidinay waxaan ku hormariyaa Professor Maxamed Umar Dalxa bal labadiisa daqiiqo waxa uu mawduuc سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدك اليوم كنت إنا يتهاي والد في عن أو كينا إفكا أولاد في عن يو والد في عن وحكسوا أبو أيام نقضى ومت في عن wax kastoo wanaagsan ama wax kastoo xun
waxay ka soo bilowdaan qoyska ama guriga haddii guriga aanan markiisii ugu horreysay aanan tarbiyo fiican soo helin dib arrinta labaad ee su-aashana hortaallo dhallinyarada iyo sida looga bixi karo marin habaabintooda marka ugu horreysa waxaan aaminsanahay horta inaan ogaano muhiimadda dhallinyarada ay Soomaaliya u leedahay waddanka Soomaaliyeed waa waddan dhallinyaro arrintu markaan saas leeyahay waxaan ka wadaa daraasadihii hadda ugu dambeeyay ee caalamku ka sameeyeen Soomaaliya waxay xaqiijiyeen in 3 meelood 2 meelood ka mid ah shacabka Soomaaliyeed uu yahay dhalinyaro 25 sano ka yar yihiin arrinta labaad mustaqbalka Soomaaliyeedna mustaqbalka dhalinyarada ayaa iska leh sababtoo ah waddan walba dariishada uu mustaqbalkiisa ka daawan karo waa dhalinyarada dhoofo khaliif siyaad oo runtii ah abwaanad Soomaaliyeed oo mowduucan gabay badan ka tirisay 2 daqiiqo bal الرحمن الرحيم مروين iyo mudanayaal dhamaantiin galab wanaagsan mas'uuliyiinta halkan fadhida kulligii waan idin salaamay gaar ahaan waxaan salaan gaara iyo hambaliyo iyo mahadnaqba u soo jeedinayaa dhalinyarada SYO oo markasta isku taxluujisa inay halkan waayo aragga Soomaaliyeed iyo mas'uuliyiinta ugu yeerto si dhalinyaradii Soomaaliyeed loo toosin lahaana ay nagala tashadaan ay markasta noogu yeeraan iskuna xilqaamaya in jiil cusub oo wanaagsan oo maskaxdooda caafimaad qabta in ummadda Soomaaliyeed in alla ka soo dhex saaray isku hawshay dhalinyaradaasna aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa fadhiyo badan uu qabanayo oo aan isdhihi karno waa ku mahadsan runtii waa qodob muhiim ah in dhalinyarada ay garato roolka ay ku leedahay in ay fahanto waddankooda dhibka ka jira waxa xaqiiq nagu ah in hadda ay jirto dhalinyaradu inaysan maqal ama aysan ka dambeyn waalidkood oo ay dhalinyaradu markaan go'aanka kaligood gaaraan siduu sheekhu sheegay waagi horena dhalinyaradu ay ka amar qaadan jirtay waalidkood halganka aad wadaan halkaas ka sii wada dhalinyarada gudaha iyo banaankana aad ugu sii xirma waxaan u malaynayaa mustaqbalkii waddanka waa idinka hadaalina ha caajisina hore u sii socda gudaha iyo banaana dadka Soomaaliyeed ee dhalinyarada kale ku sii xirma insha Allah waa ku guuleysanaysaan aad baan ugu faraxsan waan idin hambalyeynaa dhalinyaradana loo baahan yahay inay hoggaan ka qabtaan marka waxaan idin leeyahay hawsha halka ka wada samaysta hoggaan fiican waa ogtihiin kacdoon bila hoggaani waa bila macne hoggaankiina dhisa maxaan idhaahdaa isku duubnaada qabiilka iska daaya Soomaalinimadii iyo national hoodkiina soo celiya waa mahadsantii dhibaatada la sheegayo ee dhalinyarada way jirtaa balse waxa waaye waxaan isleeyahay in dib loo raadsho oo meeshay ka soo bilaabatay la ogaado kadibna xalkeedii la helo meesha waa ku jirtaa cali muuse cabdi oo ka mid ah wariyaasha Soomaaliyeed ee cadaaga ah wax badan isagana ka mowduucan bal mikrofoonka ayuu markan qabsaday haya cali horta marka u horeysa waa salaamantiin kadibna waxaan mahad u celinayaa ururka dhalinyarada ee maartay isku hawlo markasta inuu ka hadlo arrimahan oo inta badan sal ku leh dhalinyaradu siday u heli lahayd nabad ama bal haddii ay dalka wuxuu qabanayeen naftooda u noolaan lahaayeen oo uga badbaadi lahaayeen falal fara badan oo loogu adeegsado waxyo fara badan oo aan waafaqsanayn sharciyada jira iyo shariicada islaamka midnaba ururkani muddo badan buu shirar soo qabanayay markastana waxa uu diyaarinayay ajendayaal buu diyaarinayay laga doodo oo mar walba ku salaysan dhalinyaradu kaalinka ay nabadda ka qaadan lahaayeen runtii waxaa kaloo ururka uga mahad celinaya inay dhowaan muqdisho tageen oo ay saasoo kale ugu qabteen kulamo fara badan oo maaragtay nabadda looga hadlayo xilli qofka bini'aadanka aanu suuragal ahayn inuu xaaladaha ay maanta ka hadlayaan inuu soo bandhigo oo ka hadli karo qodobka ugu weyn ee dhalinyarada meesha looga hadlayo waxa weeye dhalinyaradu siday ballanteeda u badbaadin lahayd iyadana looga badbaadi lahaa waxa ay tahay marka horeysa mid iyagay ku xidhan tahay oo maaragtay bal qofka dhalinyaradii markuu 15 jir gaaro diinta islaamku waxay siisaa awoodiisa buuxda ee isagu inuu mas'uul ka yahay dambi wuxuu u geystay xumaan iyo samaanba sidaa darteed inaanu maaragtay dhinaca buugga raacno in 20 jir aan waa la marin habaabiyo oo lunsan yahay waa lagu khaldamay ma jira ninka 20 jir wuxuu u geystay dil iyo dhac iyo boob isaga ayaa ka mas'uula dhinac walba marka laga eego hase yeeshee hoggaanka siyaasadeed ee dalkan waxaa laga rabaa inuu diyaariyo dhalinyaradu inay hesho fursad waxbarasho iyo fursad shaqo kulligood waxbarasho ma wada heli karaan qofku marka uu shaqo hele oo dhaqaalihiisu daryeelan yahay waxa uu ka baxsanayaa in si yaroo gaaban lagu soo jiro oo markaa meel aanu shuqul ku lahayn loo toodo ta saddexaadee kale waxay tahay dhalinyarada balwadda waa inay aad uga fiirsataa dhalinyarada imika waagii hore in yar baajaadka cuni jirtay sigaarka cabi jirtay qaarna imika khamrigayba cabaanba marka kuwaasina waxay u nugul yihiin in meeshii la doonaba maaragtay markii marduuf jaada la siiya loo jiidan karo
sidaa darteed waxaa looga baahan yahay inay ogaadaan dhallinyaradu inay balwaddu ay tahay waxaan noloshooda ka mid ahayn oo noloshooda culays ku ah ilaa inta ay balwadda noocaas oo kale ka fogaanayaanna waxay halis u noqonayaan qof kasta ee doonaya inuu jid khaldan ugu adeegto sidoo kale SYAO waxay u qabatay isku imaatin ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Nairobi kuwaasi oo ay SYAO kala hadlaysay sidii ay dadkooda dhibaataysan gargaar u gaarsiin lahaayeen iyagoo waliba ka qayb qaadanaya sidii dalka Soomaaliya dhibaatada uga bixi lahaa ganacsatada aad u tiro badan oo kamid ah ganacsatada ugu soo sareysa xaafadda Islii ayaa ka soo qayb galay iyadoo ay goobtana goobjoog ayeen safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya iyo waliba Yusuf Xasan oo ah xildhibaanka laga soo doortay xaafadda Islii oo markaasi aan xildhibaan ahayn sidee ganacsatada Soomaaliyeed kaalin uga qaadan karaan nabadda ku aadan dalkeena Soomaaliya dhaqaalaheena soo kuma haboona in aan ku bixino walaalaheena oo ay abaaruhu halaajiyeen macnaha abaaraha dadka dhibaataysan ee Soomaaliya see wax looga qaban karaa dadka saddexaad 20 sano kadib doorkeena taageero ee nabadda iyo xasilinta dalka sidee u muujin karnaa lambar 4 isku duubni iyo iska warqab loo sameeyo ganacsatada soo ma keeni karto in si wada jir ah looga qayb galo dhismaha dalka lambar 5 soo ma wanaagsana dhaqaalaha ganacsatada Soomaaliyeed in lagu taageero dowladnimada iyo horumarka dalka qodobadaas shanta ah ayaa maxaan ku raadayay ajanduhu yahay waxyaabaha ugu weyn oo hadda miiska saarana oo ugu horeeyna waxay tahay sidee dadkeena dhibaataysan ee abaaruhu ku dhaceen wax loogu qaban karaa ganacsatadu ma fiiriyeen dhibaatada dalkaas iyo dadkeena haysata dawladda waxaa waajib ah xilligan hadda ah oo ay hadda taagan tahay in la taageeraa waajib ah waana mid diini ah qodobka kale oo muhiimka ah waxa weeye yaa ayyuhalladina aamanu istaciinuu bisabr wasalaat walaalahiga abaarto ayna wada hayso masiibooyinka masiibo ka mid ah weeye qarankeenni markaan duminay dhiiggeenni aynu shubnay qabiil isu jiiray diintii haddana ku iftiroonay masiibo cadaaba oo inagu timid weeye oo ka damqanaya fakarkaas waa in loo helaa dariiq loo maro hawsha waa in loo helaa gabdhaha meesha fadhiga horay ugu istaageen albaab walbaan garaacnay dharaa laga qaaday maacuunaa laga qaaday kiilo baastaa waa laga qaaday nus kiilo sokora waa laga qaaday masaajidada la wada geeyey laakiin weli dhaqaalihii waa dhiman yahay runtii ma jecla inaan emotion noqdo laakiin waxaa maanta ka dhacaya xaryaha qaxootiga qof islaam oo damiir leh macluush dhaqaaqayn ma jirto waxaan la soo ooyayay ilaa America waxa weeye dhibta ummadda walaalahii ah aan ka dhalanay ee dadka aqoon-yahanada iyo waxgaradka iyo culimada iyo simada ay garad ka shaqaynayaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka ugu horeysa waxaan idinkugu tahniyadeynayaa imaashada aad isu timaadeen haddaad ganacsatada xaafadda Islii tihiin waa fiican tahay in la isu yimaado la wada tashado maantana hadda waqtiga aan isu nimid waa waqti aad iyo aad u murug badan taana ay keentay dhibka dalkeena iyo dadkeena maanta haysta waxaa la yidhi meel u baahan hadal wax kama tiro dhibka jiro iyo dhibaatada jirto kulligiin waa ogtihiin cid moogna ma laha waxyaabaha dhacaya iskuma sheegayno dadkaas soo qaxay dhibaataysan wixii aan u aruurin karo wixii aan u geyn karo inaan u geeyo marka hore Somalay ukurmada gamboleyda dumarkii Somalay ukurmada
iyo inaad noqotiin dad waddankan u istaagay oo diiday in magaciina wax lagu fidneeyo dhaqankeenu wanaagsanaa oo ay soo bandhigeen waxaa u moodayaa in loo soo diray kuwii maanta xidigtii ugu horreysay ee ka soo boqoshay urbaha iyo dadka dabadiisa ee maanta ku soo noqotay muqdisho inay daaraan ilayskii dhallinyarada Soomaaliyeed. مسؤولك كدم بيجي أما بيجوا برنامج كهالكن كدعي ما أنت جوبشوك كتيم هي برنامج دي كوري ذلك الدبدي سكدعي سيدا ما يلبطن أو كملا ذلك كينيا مدن محمد إبراهيم عجيب وقدوميها هيئة Somali Youth Advocacy Organization inta badan waan aragnay waxyaabihii aan qabanay idinkan waa nala aragteen welina waxaa diyaar u nahay intaasi inka badan inaan soo bandhigin hore u qabanay SYO waxaa ka go'an hadafkeedu yahay inuu dhammaan dalka Soomaaliya ee nabad ka hirgasho dhalinyarada Soomaaliyeed muddada 20 sano dalka lagu burburinayay in ay wax fahmeen kuwii ku burburinayna waxaan leenahay waa fashilatay 20 sano kadib waxaa diyaar u nahay inaan dalkeena dib u dhisno waxaan leenahay ururkan u istaaga dhalinta aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay haddaan nahay haweenaha adduunka ee Soomaaliyeed aad ayaan ugu tahniyadaynaynaa dadaalka aad wadaan sii wada dhalinta waa kuwa maanta dhinac walba loo jiidanayo samafalkii waxaad u soo jiidatay dhinaca wanaagsan ummad yahay midnimo ma ka maarantaa maamul dowladnimo ma ka Somali haddana Somali dhaqankeeni guunka gadaal baad u duurteen muuqaalkan waa dood ay SYO u qabatay odayaashii Soomaaliyeed kuwaasi oo ay ka doodayeen sidii dalkooda loo samatay bixinta loona muujin lahaa midnimo iyo isku duubni odayaasha Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Nairobi ee dalka Kenya ay SYO intooda badan ay isku keentay waxayna dhaxdhigtay dood ahayd sidii ay midnimo iyo isku duubni u muujin lahaayeen isla markaana sidii ay markay colaad jirtay looga samatay bixi jiray oo geed la isku hoos fariisan jiray ay u soo celin lahaayeen kan oo ay qabanayso hay'ad caalami ah oo xaflinaysa hay'adda SYO ka shaqeysa arrimaha nabadda iyo dhalinyarada dadweynaadkan waxa uu talagalay in aragtida odayaasha wariyo si looga helo talooyin muhiim ah oo ku aadan xalka deegaanada ay ka soo jeedaan oo ay dhibaatooyin hagaajiyeen 20 sano ay soo dhaafay dhaqan odayaal saraakiil aqoon-yahano annaga nala mid oo inteenaana ninba hadda ka dhawaajay aqoon darraa jirta oo cartan saaxiibkay aqoon darra ma jirta aqoon xumaa jirta wiilashu markay noo keeneen warka waa la qaadanay waxaan isku tacluujinay si sharaf leh oo karaamo leh inaan guddigan weyn oo halkaan maanta isku yimid inaan abaabulno ilaahayna mahad ka gaartay waan abaabulnay sharafayna noo tahay wiilashana sharafay u tahay waxaan leenahay Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato midnimadeeda ha soo noqoto waa guulaysanay ilaahay intii soo abshaha guuleeyo waana mahadsantihiin waxaa la yidhi warku saddex waayaa la yidhi war horeeya war dhexeeya iyo war dambeeya warka horeeya ayaa lasoo hormarshaa warka dhexe lama soo hormarsho halka dambe lama soo hormarsho dhex lama geliyo aa la yidhi alxamdulilaahi waxaa marka ugu horeysa haf iyo hadal kuma jirtee nimankii munaasabaddan sameeyey oo dhallinyarada ahaa markii qola ciirsan tahay dhallinyara ka jirtay sidii SYO ay ku aasaaseen maanta nimanka istaagay oo dhallinyarada waa maalin taariikhiya taariikh buuxdayna ku leeyihiin wixii ka soo baxa ra'yiga halkan la isugu yimid
sidoo kale waxay SYO kulamo u qabatay culumaa diinka ahlus sunna wal jamaa ee ku dhaqan dalka Kenya iyadoo ay hordhigtay mowduucyo dhowr ah kuwaasi oo ka turjumay sidii ay culumaa diinka Soomaaliyeed uga qayb qaadan lahaayeen wacyigelinta dhalinyarada Soomaaliyeed iyo qaabkii dhalinyarada looga samata bixin lahaa dhibaatada ay ku jiraan waxaana ka soo qayb galay culumaa diin magac ku leh ahlus sunna wal jamaa iyo bulshada Soomaaliyeed kusaabsan yahay wacyigelin iyo askana khayrka ku jazaaya sheekh anaga kaba sheekh cabdullaahi cali aadam iyo mashaa'ikh kala tiro badan waxaan jeclahay marka insha allahu tacaala inta aanan guda gelin mawduucanaga sidii caadadeena ahayd awalan inaan ku iftitaaxno oo ku furfuranno aayadka qur-aanka kariimka ah oo inoo akrinayo مع عبد الرزاق فرح عثمان مع عبد الرزاق يتفضل مشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر يا نبيك يا عليك SYO waxay xaflad weyn oo lagu soo bandhigayay dhaqanka iyo hidaha Soomaaliyeed ay ku qabatay magaalada Nairobi waxayna xafladaasi SYO ku soo bandhigaysay dhaqanadii Soomaaliyeed iyo waliba qaabka dhaqan dooriska dhalinyarada himinka jirta loo dhaqan dooriyay fanaaniin majaajilistayaal ciyaaryahano ciyaaraha hidaha dhaqanka wariyaal dhalinyarada haweenka iyo waliba bulshada qabeeda kala duwan ayaa goobta goobjoog ahaa waxayna intooda badan si aad ula dhaceen dhaqankeenii soo jireenka ahaa ee Soomaaliyeed iyagoo ku tilmaamay in xilligan dhaqankii la dooriyay goobta waxaa lagu weydiiyey hal xiraalayaal iyo waliba su'aalo kuwaasi oo ay SYO ku bixinaysay hadiyado qaali ah kombiyuutarro telefoonada gacanta lacag dollar iyo waliba abaalmarino kale oo aad qaali u ahaa cidii ka jawaabtana ay goobta abaalmarin ka qaadanaysay waxaa lagu soo bandhigay riwaayad ka turjumaysa dhaqanka Soomaaliyeed iyo waliba heesoohii dhaqanka hidihii dhaqanka ciyaaraha qaybahooda kala duwan dhammaan ka soo qaybgalayaashii xafladda ayaa waxa ay aad ula dhaceen sida loogu soo bandhigay hidihii dhaqanka Soomaaliyeed ee soo jireenka ahaa waxaa sharaf weyn oo ah inaad nagala soo qayb gashaan ay u leedahay dhaqan ahaan barnaamijka waxaa soo arooriyay oo soo qabanqaabiyey ururka xagga dhalinyarada xuquuqda u doora ee SYO oo muddo badan kasoo shaqaynayay waxaan kaga mahadcelinaynaa waqtigiina qaaliga ah iyo kasoo qaybgalkiina sida sharafta leh ugu soo qayb gasheen iyo sida u aqbasheen barnaamijka wuxuu ka ساعة دكتور ما إلى سعودي ما يسافر بانس كيها كل حدا يصير هاي سبدا أنا بقي كل حدا يصير هاي جيت كاسل كيسة سيرة مرة يوسودي ما ينونا كل حدا يصير هاي سبوسين إيه كوكو سبوسين هذا سبوسين هذا لو تدخل كم سمالا سيدنا ولا لا تدخل كم سمالا سيدنا ولا لا سيدنا ولا لا سيدنا ولا لا سيدنا يا ولا لا يا ولا لا يا سبوسين مروي يا سبوسين 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 ولا لا ولا ولا كل هذا سلام دبا ترعيل أفاقنا الله يهدبا ترعيل أفاقنا ما تدع أن دب بيينه الله ونودر كوراعي كوراعي هذا من نودر علم أولية 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 ما أنت لك عجل بيها هذا دوا كعكنا
carrada aad qodeen carrada aad taagteen ya xoolaha laba sac carrada aad taagteen sidee uga wada cabaayaan ceelasha wada miirada sidee laba reer uga wada cabaayaan war adna labadaada sac ka waraabso anna beerteeda aan ka waraabsado ma waxba isugu kaa jira walaalow haddii si muran uu ka aloosmay miirada cilbiyaadka caqligaanu ku faaganay iyo xooggaanu ku faaganay waa nagu jiraaye mid kaleeta aan faagano kuma taano labaad hadda la faagan waxaa dhacaya dabaylaha dhacaya dhawaqooda dabaylaha dhacaya dhawaqood maqlaya tusaale dhawaqooda maqlaya tusaale noogu filan maxaan sameeya hadda dhaxantan maxaan uga badbaada dig baa yeertay gariira halka ay ka dinaagtay dalkeennoo qura maahay dunidoo dhanba weeye maxaa daaray ukaan geedka damalka ma arkaysa waa inaan jara oon dhaxanta ya gabaad uga dhigta oon jara oon shita si kale uga badbaadi maayo dhaxanta geedka inaan jara mooye dhaxanta si kale uga badbaadi maayo maxaa tiri geedkaan jari maxaan sameeyaa wallahi hadan jari karin waa jaraya geed geedka seeraha haddaan jaraya geed haddaan jaraya adigu waa kayga cin aw gudinteed aw malaayin badaa ku dhaca wargeedka waa laga dhexeeya warjoogi baa geed haddaan jaraya geed dhaglaas salafay oo dhexdeedna ka ogan too midkaan baa dhimasho rabo wala dhimasho yaa kaaga boorka dhimasho haddaan jaraya geed xagooyina ka daa dayn maayo waa jaraya walaalow ka daa waa geedkii nolosha ka daa ka dayn maayo waa jaraya xagooyina ka daa waa jaraya gacanta ku go'day adigu ku go'day gacanta ku go'day adigu gacanta ku ku go'day adigu gacanta ku go'day ayaa caawa qaadan doona lacagtan moobeelada noobkeeda ah iyo kombiyuutarkan kombaaqa ah ee miniga ah ee yar xafiiskaaga meeshaa doonta ayaa u qaadan kartaa idaaja axmed faarax cali idaaja oo ah sugaanyahan baraaweyn oo soomaaliya magac weyn ku leh baraaqada xagga sugaantana aada ugu dheereeya ayaa barnaamijka caawa ka qayb qaadan doona isaga ayaana dadka weydiin doona su-aalaha waxaan aada ugu faraxsanahay inaan kasoo qayb galo xafladan oo aanan filayn iyada oo kale in laga samayn karo Nairobi sababta waxaa weeye waxaan isagay dadkii dhaqankii iyo hidihii iyo wixii ay yaqiineen oo ka dhexeeyeyba sidii siyaasaddu ay gabaabsi u noqotay ba iyadoo gabaabsi way noqotay عنب ويكون أفضل تحي جوابتي كده جوابتي أول مرة أنا أفضل بدنا يهشي وولي بس عقد يطلب طلب هذا أفضل بدنا كده جواب تحي
Rowle عبد الله البرنامج والصحفي مدد أصحابنا كسر بدنجري عبد القادر موبايل في ود البي مكان وحنا أنا وكلي الله توفي كوبا يا نصيب له لما كم من أشياء مقمت اليوم مقعد بليز ايوه حتى هذا أيام اللابتوب كي ماشي على كل ستي أيضا أيام نسيبه على تين اللابتوب أمبلي أيامنا هذا أمبلي كبدها وقع مدعاوني أول مرة ولا قاطين ينتهي بدن مسكحدي دوني دو ملاسن موجده هيدا مسكحدي دوني دو ملاسن موجده هيدا SYO waxay Muqdisho ku qabatay sanadkii tagay banaanbaxa loogu baroordiiqay ardaydii lagu xasuuqay hargaha iyo saamaha waxayna SYO ku qabatay banaanbaxaasi degmada Wadajir iyadoo kaashanaysa maamulka xildhibaano siyaasiyiin iyo waliba bulshada degmada Wadajir banaanbaxaasi oo lagu cabiray dareenka ardayda iyo waliba shacabka Soomaaliyeed ee ku aadan sida ay uga soo horjeedaan xasuuqa loo geysanayo ubaxa soo baxaya ee ardayda ah مرتدى روح أقونتيسا برو لغما مارمي مرتدى روح أقونتيسا برو لغما مارمي هموغان تاريخ ذا مع اللي هي هموغان تاريخ ذا مع اللي هي halkan uu mahad celinaya dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo halkan maanta ku soo bandhigaysa qiiradii ay u qabeen ama dhibaatadii loo geystay ummadda Soomaaliyeed oo walaalaha ahaayeen oo u badnaayeen dhalinyaro wax baranaysa intaas kadib waxa uu mahad celinaa mahad gaar ahaan maamulka degmada Wadajir oo ugu horeeyay gudoomiyaha Axmed Xasan Cabdi Axmed Daaci shacabka degmada aad u la shaqeeyo oo faraha badan oo iskugu jira aqoon-yahano iyo siyaasiyiin iyo madax sarsare iyagana way mahadsan yihiin waxaan marka isleeyahay waxaan ku soo dhaweynayaa dalka lagu kala sumcad leh fanaaniinta Soomaaliyeed ee qaranka Soomaaliyeed sumcadda way ku lahaa weliba sabkii howlgallada waa bari Salaad Maxamed Sharfi Salaad bari ilaahay sanadkan noo sanad booqale oo dadku heshiiyo oo dagaalka iyo dhibaatada laga soo maray dhammaanto Nairobi aadan di salaamaya
أنا كان كثير أهان أورك برامج كان وبلاحظ كأي وحنقول تلقى أفرت كل والبقية فرح سنة تبغى ساعتين هذا بدي بقينا إذا فرح سنة هذه ده عم بيحطونه وهذه ده استثمار كل والبنا إن شاء الله تعالى إذا فرح سنة كرام كبيرته أنت بدي أما على جاب بدي بوحرتين أنا فرحت أنت وما إن شاء الله. sidoo kale SYAO hay'adda u dooda xuquuqda dhalinyarada Soomaaliyeed waxay magaalada Nairobi ku qabatay ciyaar kubadda cagta oo lagu weyneeyay 15ka May maalinta dhalinyarada iyadoo ciyaartaasina ay kooxaha u tiro badan ka soo qayb galeen waxaana kooxihii ka soo qayb galay soo bandhigeen ciyaar wanaag iyo waliba isjeclaansho iyadoo hoggaanka SYAO na ugu doonsiiyay hadiyado qaali ah kuwaasi oo ay ku farxeen kooxihii ka soo qayb galay ciyaaraha oo ah kuwa aad u xiiso badan iyaguna waxay ku kala tageen kooxihii ciyaarayay farxad iyo damaashaad ku aadan 15 May maalinta dhalinyarada. Give you freedom, give you fire. عشان يكو كنتوا نسينا يا معلك معلمين معلم اسكوالا قابك كنتوا نسينا يا قدوميها أورك إسوايو محمد عجيب كابتن muuqaalkan waa bandhig faneed ay SYAO ku qabatay magaalada Muqdisho kaasi oo ay u qaban qaabisay kooxda fanaaniinta Danan kuwaasi oo soo bandhigay heeso aad u tiro badan shacabkii ka soo qayb galay aad ula dhaceen.
والله بالله نقدم كنولو وحبا أريد كولا ونالله هذا أيام دحدث وحل ده دكتور وفعنا وأمد وقرقارة إله قرقار له أهل دلي حدنا شد واحد دلين من سرقال أو اللي بآدي هذا أنشوف في عنا أو فرسان بدن كركيس أي كجرته أو أدو عبادة بدناي أو في عنا أو ودني حدني كان شوكلا بقول قف أو ملوك دور سنكر سلو إله ونمله بدي مالي والب نك سرقال كايل دل أو دكتور كايل دل أو نك أخويا كايل دل أو يعني قبرتي وحكسي سل دل يا وهربي يا قوحينا بدنا يا مودا الله وعقنا هاي ونبى وابا تعلم هذينا كنت كقولتينا بعو أو أنا هذا هذا ولا يكورون جاي عن تبوي أهي السلام عليكم وايو بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم عليكم السلام مرحبا يا نو والله في عينها يا واسدة وانا بدي قلت فدي هذيك مياه قلت فدي أنا قلت فدي أنا وصلت درج عليكم الناس كوحاتي وعليكم اللي قفور الدوبري أنا بوس عناي ما ودك كفايته هذا اللي سعته ودي أنا كذا ودي ولا في داعي مرة في عنو ما ولا في عينها ولا مجرم أنا قلت فدي متى أبتدوا وعن شيء ما قال منه قبرتانا رنا قبرتانا السلام عليكم ورحمة الله يا وين سورج وين بقول يا سورج قبرتانا أنا بهاي هاي مجاهدين تأوبها مجاهدين تقعد أوبها هاي كلام مداشي له كلام هاي كريسة خلاص مجاهدين تأوبها قبرتانا الرواء أنا نقول رجس يا نقول رجس ما قبلنا عرفتين وهذا ولا يكون رأي يوسوقات فريستين بس رأيتها وقف الله يسرعتها هذا تهي رجبر يوسوقات فريستين يا تستور كيلا لا يسومر يدعك كيلا تستور على كمان غاني قبرتانا رصود قبرتانا رمانة أنا إيش قبرتانا ما أقصينا أنا سيني سام سومر وها إلا هذا ما قرأت هذا تهي نمن قبلنا هذا ولا يكون رأي يوسوقات فريستين يا هذا قبل كان رجبر يقدر يوسوقات فريستين هذا يعني كأنت ربطان واي وهذا يعني هلا هذا تذكر ربطان أو تذكر وربطان وأنا قاعد يقول تمالي سناسنا هذا تذكر إسكان برا مجاهدين تورنا مجاهدين تهنا قبرتانا ما عنده يا كله حديدا إيش قف كان كله حديدا هاي أو بريد عنده إلى هيجنا إلا حل على النقطين ليه كان لا يتصل ليه كان كله حديدا هاي ما عنده هو يتصل لو تسمع لو تسمع أنا وكان ما الناس هو كان ما يوكل ما وكان ما يوكل وعلى هذا الشيء وكان وهيدي سيدتك سجارة نافية هيدي وسيدتك سجارة هيدي لا هيدي أنا هيدي وعلى وعفرتها ما نبي قبلنا حتى نسيها سعادة نسيها أو دبر أو أبو كاري أبو كاري دبر كاري أبو محاكم دبر كاري سلبي يا كاري أبو بقول صابري دبر هكذا سويست أبو مكعب خايا طريقة ورجعنا يقفل الحليب دبر أبو معان هكذا سويست هكذا أكيد أبو سويست أنا هالكلمة وياه هالكلمة أنا قال هالكلمة طابك بقايا وكبقى يساعد كده إما قرأ أبو هاي هو تبع اللي على هو اللي ما قرأت هذا ولا يكورون يا وعن كهرباء إلى لما كهرباء إلى لما كهرباء لما سدينا كوباساي أبنتي وراعي ما كان جلي جاي شد راعي سور راعي لما كهرباء يا ابني من كواني ما وجد أبو قريب يا بتان قولي كده يوم على وعي وترى وتها أبو مين أبو مين على أبو وانت من جيجي أبو وانت رجعنا سيارة رجعنا سيارة وانت ولا تجي طبيب ما انت muuqaalkaasi ugu dambeeyay waxa uu ahaa riwaayad ay soo bandhigayeen fanaaniinta Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho ku dhaqan kaasi oo ay maalgelisay hay'adda xuquuqda dhalinyarada Soomaaliyeed ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano SYAO
daawadayaasha qiimaha leh inta aynu ku soo gabagabeynayna iyadoo hal program aan lagu soo koobi karin wax qabadka balaaran ee qabatay hay'adda u dooda xuquuqda dhalinyarada Soomaaliyeed ee SYO inta aynu ku hakinaynaa iyadoo ay jiraan barnaamijyo kale oo aad u tiro badan oo waqtigu inoo saamixi waayay inaan soo gudbino kuwaasi oo kamid ahaa wax qabadka labadii sano ee la soo dhaafay SYO laakiin waxay SYO soo qaadatay qaybo kamid ah wax qabadkii labadii sano ee ugu dambeysay idinkuna waad ku mahadsantihiin daawashada iyo waqtiga aad ma siiseen iyo ka soo qaybgalkiina باقي